ومذا وأف أنا قرن كرين تدد عادي أما أفضل عادي أنت مال فريستيل أي سميين أنا وهين أف كراميسن أف هدو ويري هي نبي وسميي سبب تاينو رين عينك وحوي وأف كعلامة سن وعي قلن دينيت ودتك وعي قلنا دولة وح معناه دي هي واجب كذا ما دام عن دولة هاستوي أنا بتقولي كو جماعة أو كساعة دولة لا تاكسي فهم ويدو يلا طبوا خريص دولة مركا واحد نقونيسا مركا دال الوضع بين نقونيسا وتدلك هو جامنيسي مركا في الصومال قال لقوت الماما أكتشولي للي هي بقول كيما كنت أف عربي وكسوقات أفكا الصومالي يسوسي بدنينا كلنا أنا إذا ما شنكرين because يسقى لفتي سعيد يستدرس أما بارس بدن كوسا ما يصير ما شرته أفكار رمضي في الصومال جوا دسم دي أنا ميل بيكسو هذا الشيء أنا ويسود كلمة بدن أيال هذا في الصومال جوا كسو قاطي أفكار كانوا كسو مع هذي أما بقى كجيمي أما بقى ولا شهر قرية بقى أفف بدن doodahan adduunkan luqado badan way jirtaa doodaas oo luqado badan mar baa jirtay 1866 mar baa la mamnuucay adduunka in laga hadlin ba waxba laga qorin ba afka luqadaha iyo halkii ka soo jeedaan markii murankoodu batay hase yeeshee Soomaalidu waa dad very isolated ku nool سألنا قراه أما بس ده إنه إمك أرجنبا أفكود إنه وياهاي نمكر الميجا هاي أنا أفكود بعدي بهربا أنا لو سيستدي كرين مركا أرتوا مذا مر باللون لكوا تاجي هاي إنه ولا كيس وحنو أنا بوكر أنا أركي إن أنا وقف عيدين إنه دمان أدونك أنا وحكم إفتي من إنه murankaa badan ee soo taagnaa waqtiga dheer inuu buuganu uu wax ka iftiimiyo taasoo ah inuu buuganu amaba af Soomaaligu gaar ahaan in uu ka duwan yahay ama uu leeyahay astaamo ka duwan astaamaha afafka kale oo isaga u gaara waa midee waa af aanad oran karin تدد عادي أما أفضل عادي أنت مال فريستيل أي سميين أنا وهين أف كراميسن أف هدو ويري هي نبي وسميي سبب تاينو رين عينك وحوي وأف كعلامة سن وعي قلن دينيت ودتك وعي قلنا وأف حب السميت كيسو ومسكعة البني آدم أنا كل ما بفكر كي ويقلب الله عليه إنه قف عين كاسو سمين كرو إن يدد عين كاسو سمين كرو أنا في عين كاسة وقف أي شرحها إياه سيدا وقفك وأبو رميبا وقف شرحها إياه معناها وحرف اللي باللي هي يا ألفابيت كسكا ألف باء تاء جاء ح معنى واللي بأمد ولي هي وقفك شرحها إياه اللهم صل على محمد حرف يلبا يصدح مكبوكن وكوكوبية هي كوني صدح بقولوا كلمودود أيو كوكوبية هي كوسو كوبي ومعناه ذكر بلا ما إري كلية حرم ساوند كلية هدو ما كان له وعد كلية وأما بقى معنيه سي أما تاء أما جامحة أما الله بيسرعي أما صدح يسرعي إما كذا كسيه فور إكزامبل بقى وين نقعنا معنيه هذا إنك معناه إنه لا ذي صومالي ها كلمة ده سكلي بقى بقى معنيه هذا وحي هاي مدحرون كي يجب وواح ديسابير وواح فانش كروبي وواح باباي با markaynu xamsaha raacinana waxay noqotaa disaster dhacay wallahi baaba halka ka dhacay baa dhacay marka ba oo ay macnaheedu ay noo iftiinsan yahay
ayaa qaadanaysa bax macnay sameynaysaa bayax bar macnay sameynaysaa bad macnay sameynaysaa bas macnay sameynaysaa badh macnay sameynaysaa bac macnay sameynaysaa bal macnay sameynaysaa ban macnay sameynaysaa yacni xaraf waloo kale qaadataana macno kale marka waxa weye laba cod oo la isku daray oo sameeyey maxay oo sameeyey laba macno intaa aan kuu soo sheegay mucjisada kale uu leeyahay afku intaa aan kuu soo sheegay ayaa haddana mid walba aada dub u akhriyaysa bax baad dub u akhriyaysaa bax naga bax ama dibadda u bax ama garoo oo kor dib baad u akhriyaysaa xab bay noqonaysaa bad baan ku idhoo dab bay noqonaysaa bar baan ku idhoo rab bay noqonaysaa ban baan ku idhoo nab bay noqonaysaa bar baan ku idhoo dhab bay noqonaysaa yacni waa xarafkaad si noo akhriysa si noo akhriysa mucjisada weliba taa afka uu leeyahay in labadaa xarafee la akhriyayo ama aad kala duba akhriyayso ama aad kala hore akhriyayso kuma koobno oo keliya kelmadaha gaagaaban ee af soomaaliga wuxuu gaarayaa ilaa kuwa lixda xaraf ka samaysmaya ama wixii ka badan baba imika haddaan kusoo qaado dowlad aan kula dowlad macnaheeda bashar ah yacni xaraf wala saasoo akhridayo saasoo akhridaaba isagaa sharaxaya macnihiisu way sharaxaysaa maca kuwii horeynu soo sheegnay iyagaa sharaxaya macnay ku fadhiyaan isku sharaxaya imika dowlad baynu kasoo qaadanay for example dowlad markaad duba akhrido horta sideedaad ka fahmaysaa dowlad adaan markeeda horeba duba u akhriyin haddaad kala qaado waa laba kelmadood af soomaaligu saas waa nadar mucjiso kalu leeyahy waa kelmado isu tegtegay markaa daw iyo lad weeye horta marka hore kelmadda arkay ka soo jeedaan waa daw lad xaq right weeye dowgii waxaasaan daw u leeyahay inaan nabadgelyo ku seexdo dowladda waxaa macnaheedu yahay waajibkeeda maadaama aan dowlad haysto waa inaan nabadgelyo ku gama aan ku seexdaa dowlad haddaad taa kusii fahmi weydo iyadaa duba akhriyaysa dowlad marka waxay noqonaysaa markaa dalwad bay noqonaysaa waa tii dalka hogaaminaysay waa mucjisadu leeyahay af soomaaliga aan afafka lahayn rashid ma jiraan luuqada intaad ku jirta daraasaadkan luuqado kale oo adduunka oo aada loolan karo af soomaaliga way isku dhow yihiin ama bahwadaag bay yihiinba ama waa isku bah hayo markii hore nimankan oo dadaal badan sameeyey linguistigiska nimankan cilmiga luqadaha ku takhasusa afafka waxay u kala qaadeen reer bay u kala qaadeen marka ugu horeysa af soomaaliga iyo afaf kale waxaa la isku yidhahdaa ee isku bahda ah waxaa la isku yidhahdaa afro asiatic language afro asiatic languagekaas oo dhowr qowmeed baa hoos yimaadaa waxaa ka mid ah cushitic languageka iyo cushitic languageka dalalka ku hadlaa waxa uu sii kala kacay inagu keenu wuxuu noqdaa eastern cushitic language dabeete waxaa isku raacaa soomaaliga oromada anfarta iyo intan east africa dhowr afoo kale afafka markay noqoto kaas hadda waa cushitigi inagu eastern cushitic baynu ka siinay afka kala yimaadaan waxa weye semitica isagana waxaa isku raacaa carabida hibrowga amxaariga tigray language kuwaas ayaguna isku raacaa ka saddexaad ee hoos yimaada afro-asiatic language waxa weye ancient egyptian language oo isaguna hoos yimaada afro-asiatic language marka af soomaaliga lagu tilmaamo actually la leeyahay 50% af carabidu ka soo qaatay afka soomaaliga ay isugu sii badan yihiin ee kalena aanay cidi meeshan karin because isaga laftiisa cid studies ama baadhis badan ku samaysay ma jirto waa afka oromada iyo af soomaaligu waa the same DNA meel bay kasoo wada jeedaan aadna way isugu dhow yihiin afka maanta la tartami kara af soomaaliga ama odhan kara annaguna waxaan nahay afafkii ugu horreeyo kayagaa ka horreeyay ka soomaaliga wuxuu noqon karaa ka oromada haddii studigiisii laakiinse anigu ilaa hadda meel lagu sameeyey maana linguisticsku ama luqadu waa science proofs baa jira afkan wuxuu sharaxayaa afafkii kale
ayuu sharaxayaa oo macnahoodii sheegayaa oo aynu leenahay war afkayagu halkaasuu ka soo jeedaa kiinu halkeebuu ka soo jeedaa iminka waa tii aad tidhi afka soomaaligu wuxuu badan yahay in la yidhaahdo af carabi waa jiro kelmo badan waynu wadaagnaa af carabida kelmado badan baynu wadaagnaa ingiriisida oo taa bilayska aan kuu sheegaya ay ka mid tahay oo anigu aan qabo inaynaan boliis ka qaadanin ee ay ahayd ay ka soo jeedo bilays taa carabida ah baa ka mida oo ka aad ku fadhido kursiga aad ku fadhido oo dadku lagu odhanayo ama soomaalida kulas waa carabi kelmadu oo aan ahayn noqonaysa kur ama kor ama kur iyo si la isku daray afka weliba haddaba carabida halkaas baynoo dhig carabidii af soomaaligu waa laba af aan la kala saari karin oo imika kelmadahan ku sheegay kale xaraf carabida aniguna aan qaba in af soomaali tahay because laba af bay ka timaadaa xar iyo af bay ka timaadaa xar xarka waa taqaanaa wuxuu yahay iyo af iyo hadal in dumarkaad u akridno farax wax lagu farxo markuu qofku dee hadlo labadaba waa carabi iyo soomaali way noqon karaan afka horta sidiisa laakiinse aad la yaabayso weliba aad oranayso nimankii afkan sameeyey completely waxay yaqaaneen af soomaaliga waa afka ingiriisida ah afka ingiriisida haddaad soo qaadato waxaad u imanaysaa kelmado dhan oo dadku mar u haystaanbaba inuu yahay aniga sidaan u arkaba iminka ingiriisida haaf dee af soomaali baan u fahmaaba ay markiiba igu soo baxdaan because had iyo jeer markaan kelmadaha eegayo waxaan tagaa halku afku ka abuuray afka aadan baa lahaa aadan baa afku ku dhamma aadan baa abuuray afka marka waxaan tagaa had iyo jeer markii adduunka bilaabmayey halkaasaan istaagaa sidaan u fahmo ama af soomaaliga ama af carabiga ama af ingiriisiga iminka haddaan kusoo qaado tree waa geed anigu tree uma aqaano geedka anigu af soomaali kamid af soomaaligu maanu eegaa tree waar tree aan halkaa aan iskaga tirtirayey ma aragtay tree wixii wax tira ee wax lagu masaxo ayuu nahay waar idhib tiraha aan iskaga tirtira halkane tree wuxuu ka soo jeedaa waa kii aadan iyo xaawo ka soo tiray jannada ayay magaca loogu bixiyey nimankii bixinayey waa dad taariikhdii garanayey bay ahayn oo weliba af soomaaligana garanayey marka tahay geed sidaan u fahmaa geedkan macnihiisu uu ka abuurmay waxa weeye gee muxuu geeyey da cimri buu geeyey markii ay cuneen aadan iyo xaawo siday diintu inoo sheegayso geedkii dee waa dhimashaa timi dhimashadii timin waxay noqotay inay cimri la yeesho markay aadan iyo xaawo cimri bay soo yeesheen way soo baxeen marka wuxuu geeyey da markaad dhinaca kale ka eegto mar saasuu kugu sharxaya geed macnihiisu markaad dhinaca kale ka eegto wuxuu noqonayaa ga oo halkaa taagan iyo eed waa kii eedda sameeyey abuuray eed ayuu markaasna noqdaa oo ga baa macnaheedu le waxa weye kii support gareeyey wax taageeray eedda markaan geed saa u eegaan aan ka dhex arkay eeddii aan ka dhex arkay da'dii aan ka dhex arkay kii wax geeyey halkaa ayaan trigiina eegay geedkii trigii ingiriisidii waxabay waa dasamidana waa trihii af soomaaliga waa kii soo tirtiray haddaad tahdid kelmadaha ugu mucjisay weliba haddaynu inta hore iska dhaaf leg lug waxyaabaha iskaga dhiman I'm hungry waan gaajoonayaa hunguri baa haya ilaa xad markaad naha dictionary oo kana oo af ingiriisi aan haddana ku dictionary eray waa kii hal abuurka la dhigayay ee lagu keedinayay markaad waxaasoo dhan soo dhaafto laayan libaax laayaan baynu nahnaa inagu war waa kale laayaankii markaad waxaasoo dhan soo dhaafto kayso markaad ilaa xisaabtii timaado seerkal waa seer iyo kal seerka waad aynu seerano halkaa aynu seerno kalkiina waad garanaysaa kalba meel baa la seerayaa waa la calaamadinayaa ab hooyo muxuu ku bilaama ku dhamaadaa af soomaaligu sidiisaba markaynu sharaxno alphabetigiska waataan ku yihi buugga wuxuu sharaxaya
alphabetigiska alif beetadeennuna mucjiso ayay leedahay alif beta markaad eegtid alif waynu naqaana inagu waxay tahay laakiinse alfa cid garanaysa macnaheedu ilaa hadda ma jirto alif haddaan ku dhaha heestaa alif waa abuur hal abuur samee alif produce bay noqonaysaa create marka samee weeye alif alif beetada waa a iyo ba ama markaynu a bata horta afka waxaa bilaabay a baa bilaabay ab a iyo ba baa isku xigta mucjisada leedahay weliba af soomaaliga alif beetadeenu siday u qorantay oo xagga minallaahi laga saxay waxa weeye waxay ku dhammaanaysaa saddexda xarf labada xarafoo ugu dambey ku dhammaanaysaana waxa weeye ha iyo ya hooyo aabbaa bilaabay hooyana way dhammaystirtay waana tan maanta adduunka la yihahdo madaris tank ama madaris language marka alifta aan kuu sheegay markay tahay create ama sameeya haddana maxay noqonaysaa marka dub akhrido kelmadda alif waa fila inaad samaysaa fila inaad abuurtaan af baa loo arki karaa oo loo dhigi karaa marka alif beetadu alif beetada alif betada iyada lafteeda haddaad aada sii daba gasho siday isugu xidhan tahay ayay sheeko dhan xambaarsan tahay alif beetadu waana waxa keliya ee ka dhexeeya afafka oo dhan alphabeticsku waana ta relationshipka ugu adagee afafka walaalaysa ee kelmadahana isku xidhaysa because markaad xaqiiqada eegtid iyaga oo aan macno lahayn relationship may samayn kareen afafka iskuma xidhi kareen laakiinse dadkii afafka samaynayay cod waliba macnihiisu wuxuu yahay ayay garanayeen daadsoobay afafka u kala tegi kari waana isugu xidhmay marka macnaha ugu badan ee uu buug sharxaya buugeyga waxa weeye xarfaha macnahooda oo one by one u kala qaadayo haddaan kugu soo diro kelmadaha ugu cajiibsan ee af soomaaligu leeyahay aynaan inagu si gaara u eegin saddexda xaraf ee ugu dambeeya markaad eegtid iminka af soomaaliga waxa weeye wa iyo ha iyo ya haddaan ku aw waa taqaanaa macnaheeda aw aadan aw axmed aw hebel aw waxaa loo yaqaanaa nin wadaada oo soofeya oo tusbax dheer iyo warankaas iyo gadh weyn leho dadka wacyigelinaya ka kacay laakiinse waxaa loo yaqaana oo xaqada wadaad marka la leeyahay aw hebel ninaan diinta scholar u ahayn oo jaamacad uga soo baxin waa ninkaas soofiga ee maaragtay miyigii marayay baa aw hebel la odhan jiray xaqiiqadii waxa weeye waa nin isagu diintiisa halkaa madaxiisa ku sita ayuha macno badan bay samaynaysaa kelmaddaas markaad usii dhabo gashid uu ku fadhiyo meeshay kasoo jeedo ay ku iftiimi karto haadina hooyo haadi ahay ama hooya ha kasoo jeedo kelmaddu markeeda hore laakiinse ahay baa jirta iyaduna ahna maxay noqonaysaa mar waxay noqonaysaa waxaasoo waxaa ah marna waxay noqonaysaa regret ayay noqotaa iyaduna macnaheeda leeday waxa ay kusii xidhantaha way sii dhaaftaa haddaynu tagno oo ay soo gelayso waxay yeelataa afar macno mar bay noqotaa oo waxay noqotaa ayga loo baxo aygaan qabanaya jangalkii waar miyigii baan tegay aygii baan qabanaya marna waxay noqotaa magacuyaal ama personal pronoun oo she ayay noqotaa ay diiday ay cuntay ay tidhi oo waxay noqotaa magacuyaal gabdheed marna waxay noqotaa benefit wax faa'iido profit noqotaa benefit oo waxaan ku oranayaa wallahi kayse u ay inankii wallahi kayse u ay gaarigii wallahi kayse u ay daartii beertii u ay wax laga faa'iiday oo aad wax ka faa'iiday bay noqotay marka kelmadda xarafka ayaa waxay noqotay mar waa faa'iido marna waxay noqotay personal pronoun oo
gabadhiya marna waxay u noqotay jangalkii oo aygii baan qabanayaa ta afraad waxay raacdaa feeb walba ficil walba xagga dambe ka raacdaa ay oo ay dhigtaa baas ka dhigtaa oo ay geynaysaa markii adduunka laga soo bilaabmay cun raashinkan iyo cunay waan cunay already ay baa raacaysa waa mucjisooyinka afku leeyahay oo kutusaysaa aydii saddexdaa lahayd inay wakti hore soo bilaabantay cunay dilay qaaday ta kale markaad eegtid aw iyo ay labadaa kelmadood wax allaaliya wixii laba waay ma jeeda ay tidhi ay tiri ay cuntay aygaan qabanayaa u aydaas iyo aw labadaa kelmadood wax allaaliya wixii magac laba waxaa raaca marka loo yeedhayo aw baa raaca wax allaaliya wixii magac dumara marka loo yeedhayna ay baa iyo raaca waraada ay baa raacda marka af soomaaligu waa af u baahan waa af hodana waa af u baahan cilmi baadhis dheer waa af u baahan haddii dictionarygiisa lasii qoro imika loo yidhahdo waxaynu qoraynaa Somali etymology dictionary waxaan ku qiyaasayaa inuu noqon karo markaan anigu imika eegay in yarba xoogaa baan markaan eegay aan sii balsi wuxuu noqon karaa kaa 3 laabkii ama 4 laabkii ayuu noqon karaa waxaan filayaa markaynu kaa produce garayno in adduunku uu soo jeesan doono uu arko xaraf walba mid wala ay garan lahaayeen macnihiisa barta uu ka helaya uu noqonayaa af Soomaaliga aynu kala qaadnay aynu kala furfurnay